war-saxaafadeed xalay oo ay taariikhdu ahayd 4 bishii 3 2024 abbaara kowdii habeennimo ayaa howlgal ciidanka ammaanka iyo degmada Dayniile oo iskaashanaya waxay howlgal ka fuliyeen duleedka magaalada Dayniile howlgalkaas oo ay ku beegsadeen kuna dileen dhagarqabe ka mid ah ka tirsanaa qawaariista isla markaana waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagarqabayaashii ka mid ah oo midna dhaawac yahay midna uu bad qabo howlgalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii maleeshiyaadkan qawaariista ah ay si dhuumaalaysi ah u soo galeen degmada Dayniile gaar ahaan Buurdheere ee duleedka degmada Dayniile isla markaana halkaasi ay ku dileen nin nabadoon ahaa oo lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Muxyidiin oo ay gurigiisa ku weerareen isaga iyo askari asaga staff u ahaa oo la joogay halkaasna ay ku dileen maleeshiyaadka qawaariista ee gacanta lagu dhigay waxaa la hor keeni doonaa cadaaladda waxaana ciidanka ammaanka ka go'an saacad kasta ilaalinta nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed badqabkeeda wadajirkeeda diinteeda maalkeeda intaba diyaar ciidanka ammaanku wuxuu u yahay iyo maamulada degmooyinka oo iskaashanayaahi in ay saacad kasta la dagaalamaan cid kasta oo cadow ku ah dhammaan waddanka amnigiisu waa aad buu u wanaagsan yahay gaar ahaan magaalada Muqdisho amnigeedu aad buu u wanaagsan yahay aad baa u mahadsan tihiin haddii aad qabtaan wax su'aala 2 su'aalood waa la weydiin karaa bal waxaad sheegtay inuu amniga fiican yahay haddii amniga fiican yahay sidee caasimadda dhexdeeda uga dhacay dilka noocan bismillaah waxaan u malaynayaa dhalinyarada hadda ay hor taagani khibradda waxaa yar baan u malaynayaa markii aan kaftanno aad u leedihiin amnigu waxa weeye meel kasta waddamada horu maray ayaa dilku ka dhacaa argagixisadu ka dhacdaa 24 saacna waxaa lala dagaalamaa dil noocyo badan isugu jira marka dil wuu dhici karaa qoomiyad 4 milyan oo meel ay ku nooshahayna dil waa ka dhici karaa cadow ummadda Soomaaliyeedna waad garanaysaan kuwo annaga noo eg oo annaga naga dhashay oo la marin habaabiyey ayaa maaragtay duurka ku jira dagaalka ku socdana naflacaari weeyo aad baa maaragtay loola dagaalamayaa sidaa awgeed dil muxuu u dhacay lama yiraahdo laakiin maxaa laga qabtaa la yiraahdaa wax ka qabashada waad u jeedaan xalay nimankii weerarka soo qaado 3 ahaa 3diiba ma ay safakan midna waa la dilay midna waa dhaawac midna nolosha lagu hayaa yaa kala su'aal qaba waa ma sinta afayeen maalin dhoweyto dad shacab oo dareenkooda ku cabirayay isgoyska Siinaay oo banaanbax nabadeed qabanaya ciidanku rasaas la dhicin Allah u naxariistay qof baa dhintay dad kalena way dhaawacmeen bal arrintaas nooga war runtii amnigu marka la yiraahdo amni hal la qabto oo amniga hal laga shaqeeyo qalad waa dhacaa sax iyo qaladba waa ku dhacaan waxa qofka qoriga wataana waa bili aadmi weeye xabad baa ka fakan karta cadow qof uu moodayay baa wuxuu noqon karaa maaragtay qof wanaagsan sidaa awgeed waxa laala wixii dhacay oo gobolka Banaadir ka dhacay oo dhan waxaan rajaynaynaa wixii qaldamayna oo qaladahoo dhacayna in maxkamad la horgeeyo wixii badqabana waxaan rajaynaynaa in ay sidaa ku badqabaan shacabka iyo ciidanka amniga oo wada shaqaynaya oo iskaashanayaana amniga si fiican uga wada qayb qaadanayaan waana la wada jiraa shacabka iyo ciidankana wax dhibaho ka dhaxeeya ma jiro wax buuqaho ka dhex jira ma jiro
aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrimahaas culayska ah oo sixmadda ah oo maaragtay waxaad u jeedaa baan u malaynayaa sixmadda maxaa uga jeedaa ma isgoysyada iyo maaragta waxyaabahaas miyaa uga jeedaa waxaa la rajaynayaa in wax badan laga qabto taraafikada iyo ciidanka booliiska oo iskaashanaya gaar ahaan taraafikadu maantay amar baa la siiyey si fiican baana taliyuhu ula hadlay waxaana lagala hadlay sixmad inaan gobolka banaadir laga ogolayn oo ay wax ka qabtaan arrintaasna si wanaagsan baa wax looga qabanayaa hawsheediina waa lagu jiraa bisha soo qaadna waa loo diyaar garoobayaa waa loo diyaar garoobay aad baa u mahadsantihiin